فدينتو waxay tiraahdaa aslan guriga markay guursato inantaas kale sharciyan inantaas kale حتى هادانو magaceeda ku qorneenba ayad baa tiraahdaa oo quraan ku taala وقرنا في بيوتكنا ما قرأتي gurigaaga joog ayad kale xataa way jirtaa oo daliil laga dhigi karo oo loorna guriga inanta iskale taas waa kow laba inanka marka leeyahay iskale ma kaligeed baa marka miyaan maya guriga iskale iyada xor ku leh guriga wax kasta ku soo iibsan kartaa qofka ay doonayso inay qaabasho way qaabili kartaa laakiin dhibaatadu waa inanka hooyadii adiga hooyada ma jeceshahay walaalka inantu guursada inay sidaas oo kale wala dhaqanto يعني صدها ترى لما تشوف كرتو ما تشعلي لكن قفك بنا آدم كهدي هبي أنا كوين تسوي يدي تقول جديس كتشوجسا لكن أنا وحن من سنة هاي إلا قاطع فصح والله إنا قبضها ويسوق جرسدي جورج أنا كمسؤولة marka wuxuu ku soo kordhinay xitaa walaalkii haduu imana weyn ugu dhahaa walaal habi ma ku tahay mas'uuliyaddu ma laha intii guriga rag u qaadi jiray mas'uuliyadiisu ku wareegtay waa shaqada dibadiisa ayuu mas'uul ka yahay laakiin kan gurigan uu igu qabo anaa ka mas'uula wixii soo galay wixii ka baxay anaa ka mas'uula guriga hooyadu waa hooyadii guriga aabuhuna waa aabihii guriga mid walbana xuquuq buu leeyahay ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وآيات قرآن دمركو حقوق ذا إليهن حقوق ذا إليهن مدلم ذا لقوليه ننكي حقوق ذو ليه مدلم ذا حاس كينا لا رقصه هل درجة لا ديريهن بالليل أو أن لوسنين درجadaasi maxay tahay waa darajada qawaamada waa guriga iyo hoggaankiisa waa mid ayada kale Ilaahay ku sheegay ar-rijaalu qawwamuna 'ala an-nisaa isaga ay tahay guriga mas'uulka koobaad ka ah isaga ay tahay inay reerkiisa iyo xaaskiisa xataa uu toosiyo marka gurigan ninka mas'uulka ah isaga odayka ah hooyaduna waa hooyadii guriga wixii arrimay ku saabsan wada tashi wa amruhum shura baynahum laakiin go'aanka gabadhamaysta ayaa leh marka la tashado odayga guriga iska leh laba awoodood oo simanna ma aha hadday laba awoodood oo siman noqon lahaayeen waa warka gaalada iyo sharciga gaalada gurigaasi ma dhisnaan karo waa ka Ilaahay quraanka ku sheegay shay kasta oo jira laba awoodood oo siman haduu ka dhaxeeyo ma jiri karo law kana fihi ma'alihatun illa Allah la fasadata samadan iyo dhulkani hal ilaah inuu leeyahay maamulo hal rabbi waxa ku tusaya hagaagsanidii isku toosinidii nidaamkii ay waligood lagu arkay ku socdaan hal jiha maamusha haday laba jiha iyo ka badan maamuli lahaayeen way fasaadi lahaayeen suurtagal ma tahay hadda dawladdan ama dawladaha laba madaxweyne isku awooda dawlad ma maamuli karaan shirkad laba manager oo isku awooda ma maamuli karaan maya wax badiyo iska cad waay guriga ninka odayka hooyaduna waa marwo muxtaramaho waa hooyadii guriga hadday timaado su'aasha qaraabada hadday timaado qaraabada dhanka gabadha ka socotana guriga xuquuq bay ku leedahay gaar ahaan hadday waalidka yihiin qaraabada xagga ninka ka socotana guriga xuquuq bay ku leeyihiin gaar ahaan hadday waalid yihiin ma jirto wax la yiraahdo gabadhuna qaraabadeeda xor weeyaan oo guriga firiga iyo guriga u fasaxayay ninka qaraabadiisuna gaar ahaan hooyadii baa la magacaabay guriga marka la keenayo waa in xaaska idan la weydiisto oo hadday diidana maamada meel kale loo raadiyo ayu sharcin hada waa sharciga kufriga iyo gaalnimada waa شرع كفري ولا شرع إسلام ما هو يدا ما ماذا كوريجا إسكاله نين كذا هو يدي يأبيه
gurigeeda idan weydiisan maayaan lianna ninkeedaba iyagaa iska leh nabigeenu sal alla alay wasalam wuxuu yidhi anta wamaaluka liabiika nin buu la hadlayay wuxuu ku yidhi adiga iyo xoolahaagaba aabbahabaa idin leh hooyadu waa ka sii xaq weyn tahay ya haddiiba ninkaagii la yeeshay oo hooyadii leedahay ya ninkaaga ciddii lahayd see baa guri loogu diidi isagii baaba la yeeshaye waa midda labaadee haddii adiga laf ahaantaada hooyada ah waalidkii ninkan dhalay inta lagu afgaran waayo ay ku yidhaahdaan waryaa middan inama anfacaysee fur waa lagu eryi marka hooyaan guri u diidi idan ha lay weydiisto guri kale ha loo kireeyo ay sharcin haada ay sharcin haada qaraabo goysnimo intaa leeg waxa laga hadlay haddana waa waalid waxa laga hadlo haddana waa waalid waaye qaraabo kale xataa hadday ahaan lahayd bacdu shari ahwan way isdhaami lahayd laakiin waalidkiibaa guriga loo diidiyo idan ha weydiisteen waa thaqaafo iyo dhaqan inoo yimid oo soo guuray waaye waa dhaqan la soo minguuriyey oo aan ahayn kii islaamka aanan ahayn kii bulshadeennu ay lahaan jirtay war miyaynu lahaan jirnay ma dhaqan waxaan lahaan jirnay hooyo meel kale ha loo raadiyo la yidhaah maya ama xagga xaaska ha ka timaado ama xagga ninka ha ka timaado hooyo gogasha ugu wanaagsan baa loo dhigaa cuntada ugu wanaagsan baa la siiyaa guriga idan ma weydiisato iyadaa iskale aabba waa sidoo kale ama dhanka xaaska ha ka yimaado ama dhanka ninka ha ka yimaado waalid baa idan weydiisanee adari dhaafi meel kale u kireen naagta sidaa qabtay in la eriyo waayo in la fiijiyo waayo taasi naag maaha xaas maaha haddayna waalidkiiba ogolayn oy gurigiiba ka sheemayso u diidayso xaaskaasi muxuu yahay ya malaha naag caddaan aad qabtaan naag yurubiyaana maad soo guursateen gabadhaas soomaali maahaan u malaynay waxaasi dhaqan maaha la dhaqankeenna islaamkana maaha walaa dhaqan diinteenna ka soo jeedana maaha waalidku madaxuu saaran yahay xaqa ilaahay siiye waa xaqiisa midka ku xiga ma garat xoolahaaga waalidkaabaa iska leh alimaamu axmed caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahay xataa inuu baahidiisa xoolahaaga ka qaato keliya meehe xoolahaaga intuu qabto wax ka sadaqaysan karaa waalidku addoontaada kuu joogta buu waalidkaagu xorayn karaa isagoon idanku weydiisanay alimaamu axmed fii kitaabi ilwarac buu saa ku leeyahay